بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، walaalayaal magacaygu waxa weeyaan aadan cali barwaaqo, waxaan joogaa degmada sheekh. waxaan halkan idinka sheegayaa kii xanuunsanayay ee la oran jiray axmed cabdilaahi siciidina maleegani ee hore ay loogu soo ururiyey ama gruubka marsi gruubka usoo reebay gruubada kaleba ha usoo ururiyaan ama muuse cabdilaweyne ha usoo ururiyey. ninkii waxaa la geeyey dhakhtar, si aan isku ogeyn dhakhtarka tugriga ee xamar ayaa la geeyey. dhakhtarkii dabeedna adugu wax badan uma qaban, wuxuu u qoray 12 xusuus isbrin. wayla noqon weydo markaa dadkii waday inaan u abtiyaa iyobaa wadeeyey inanay walaaliyiin. kaa wayla noqon weyday inuu isbrin ninkaa 7 sano xanuunsanayay inuu malaa daweynaya ayay la noqon weydo. dabeedna waxay geeyey dhakhtar kaloo hargeysa ku yaala xamar oo nin Soomaali haysto oo aad loogu sheegay inuu takhasus xooga u leeyahay xanuunada macaan. markay aragtii geeyeen haddii la beerikida leeyahay wuxuu qoray dawooyin 7 cisho u diray. 7 cisho kasoo dhamaysteen xamar gudeed. 7 markay kasoo dhamaysteen ayay ku noqdeen haddana saaka markay ku noqotay xalawel nala soo hadleen beritaan ku noqon bay idhaahdeen. maanta oo isniina way ku noqdeen. markii ay ku noqdeen wuxuu u soo qoray, wuxuu yihi xanuunkan waa xanuun in badan soo hayay ninkan, sidaa hawsha yar lama kaga tegi maayo. 3 bilood oo dawooyina buu soo qoray. 3 bilood dawooyin hadda midna waxay ka galaafteen nooligii dee ay kusoo noqon lahaayeen. marka haddii la beerikada leeyahay inantii iyo inankii way soo hadleen. waxay yidhahdeen gruub dadkii nacaawiyey markii hore iyo dadka islaamka iyo dadka ehelka iyo dadka haddii aan laga beerikada leeyahay wax haysta iyo dadka haddii aan laga beerikada leeyahay waxaan ka codsanayna aan nooga codsataan dee inay haddii aan laga beerikada leeyahay mar dambe na soo caawiyaan, na soo kaalmeeyaan. ninkii hare wuxuu siiyaa ninkaa dee ku bixiyey ilaahay khayra ka siiyo, ka aan hayna ilaahay soo geliyo, in imika wax soo bixiyana ilaahay mid khayr qabta hau soo wadaaliyo. ka waxaan leenahay dee haddii aan laga beerikada hawlka badaal weliba hogadii baa la yidhiye. arrinkaas ayaan u sheegaynaa dadka islaamka ama muslimiinta ah ee musaxabtale iyo kuwa islaamka iyo kuwa haddii aan laga beerikada golayaasha dhammaantood arrinkaasaan u sheegaynaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. waxay la damayn doonaa odayaasha. بسم الله الرحمن الرحيم. magacaygu waa cali jaamac ibraahim, waxaan ka mid ahay odayaasha degmada sheekh. waxaanu idiin sheegaynaa dadka islaamka ee muxsiniinta ninka xanuunsanaya axmed cabdilaahi siciid ee hore hawshiisa aanu idinku soo bandhignay. ninkaasoo muddo dheer xanuunsanayay, horena ay marse group u caawisay oo ay dhaqaalaha aanu halkan kala hadalnay oo ay dhaqaalaha 2600 u soo dirtay, taasoo ninkaasi dhib badan iyo xanuunkaasoo waqti dheer hayay, dhibaato badanna ku hayay, ay nala arkeen una soo naxariistay. ilaahay baa naxariis lehe una soo direen dhaqaalaha. ninkii waxaa la geeyey dhakhtarkii tugriga xamarna waynu ognahay waxa wax lagu iibsanayaa waa $. dawooyinkiisii iyo hawshiisii iyo qarshiyadiisii wixii way gaari weyday. waxa weeyaan inantii waday waxa waday inan ay walaalayihiin iyo abtigii ayaa waday. waxay soo sheegeen ninkii xanuunkii inuu ladan yahay oo uu soo raysanayo, dhaqaalihiina gaabsi inuu ka go'ay. waxaanu leenahay marse group iyo dadka islaamka ee muxsiniinta cid kastaba leh iyo ururada kale muuse cabdille arrinkaa inay sidii horeba uga qayb qaadatay marse group uga qayb qaataan oo inankaa xanuunsanaya ee axmed cabdilaahi siciid
ina maleegana ay arrinka ka hawl galaan isu dilaan wax weeyaan dhaqaale si halka ay wasoo baxaan hawshu way ka go'ay noolku wuu ka go'ay wax weeyaan si halka inay ka hawl galaan oo wax weeyaan arrinka la isweydiyo dhaqaale bay u baahan yihiin la gaarsiiyo si degdeg ah waxaan leeyahay idii hore caawisay ee ka qayb qaadatayna ilaahay jisaayigeeda ha siiyo cidda dambe imika ka hawl galaysana ee arrinka ka hawl galaysana jisaayi kullu khayr ilaahay khayrkeeda ha siiyo waxaan leeyahay arrinka la eega waxa dhayarsanina waxay ku xanabayeen waa xamar waxa weeyaan cid ka garan maayaan waxaan idin sheegaynaa idinku soo qayla dhaanta dirnay hawshaa ina ka hawgasha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعد وعن يسألني على الأمور وحصل ولا شيء وحنا السلام يا وبتشوفتك هيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت أكدت وحنا كيف تيمينيا أرين هالكم من حوصلة يا ولا عبد الله السعيد أحمد عبد الله السعيد مليوني ninka hore waxa u caawiyay walbajoogta waa nin muddo dheer xawsanayay marka xamar baa la geeyay adigu imika ninka dhakhtar baa la geeyay uu ladan yahay marka waxa halka ka go'ay nuurkii iyo kharashkii waa ka go'ay waxaan leeyahay walbajoogta reerka musaabale iyo marsa gruubba iyo ukala kale ninka hawshiisa waxa weeye wixii halkaa geystaan waa boosta aakhiro idinka idin taalo arrinkaa ninkaasoo caawiya oo arrintaa si degdeg ah uga soo jawaaba wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu